بسم الله الرحمن الرحيم kusoo dhawaada shabakada sologroups.com ee laga barto cilmiga IT-ga ama information technology-ga ee ku baxa luqadda afka Soomaaliga. Ardayda nagu cusub waxay samayn karaan inay aadaan members, login ama register oo isku meel tagaya. Tusaale ahaan, haddii aad doonaysid inaad member ka noqotid sologroups.com, waa in aad tagtaa halkan memberska. markii sidaan aad furtid waxaa kuu soo baxaya bog ama page ayaa kuu soo baxaya kuu sheegaya qaabka loogu soo biiro ama loo isticmaalo shabakada sologroups.com. waxaad ku aragtaa membership inay ku qoran tahay $12 per year oo macnaheedu ay tahay $12 sanadla ah. marka maalintii aad isdiiwaangelisid hal sano ayaa lagu ogolyahay inaad isticmaashid. marka wuxuu ku leeyahay fadlan intaadan isdiiwaangelin ku soo dir dahabshiil, bakaal oo ah xawaaladaha ama PayPal $12 oo sanadla ah. sanadkii hal mar ayaad bixinaysaa. hadduu kaa dhacana cusboonaysiin ayaa samaynaysaa. magacaad kusoo diraysa waa Cabdi Ismaaciil. telefoonka London waa telefon eber 207 148 77 eber 207 148 77. kadib markii aad soo dirtid lacagta ama fiiga yar ee lagu isticmaalayo shabakadda, u soo dir email members@sologroups.com kuna soo qor magacaaga, emailkaaga iyo xawaaladda aad ku soo dirtay si aan kugu soo dirno code aad isku diiwaangelisid. tusaale ahaan, haddii aad doonaysid emailka PayPal waa info@sologroups.com. marka inaga ayaa kuu soo dirina code markii aad noo soo dirtid email halkan aad kusoo dirtid adigoo sheegaya meesha aad kusoo dirtay fiiga yar ee la bixiyo. haddii aad tahay qof isticmaala kaararka laga isticmaalo wadamada qurbaha laga isticmaalo, halkan ayaad riixi kartaa adigoo ku bixin kara Mastercard, Visa card, PayPal oo isku xiran. marka registration yar ayaa samaynaysaa. kadib waxaa lagu soo dirayaa codekii markii aad soo dirtid email aad soo dirtid members@sologroups.com. marka xilliga emailka lagu soo diro, tusaale ahaan hadda waxaanu samaynay email ayaan u dirinay isticmaale si uga qayb galo isticmaalidda sologroups.com. emailkii xilligii loo soo diray waxay ugu timid sidan. waxaa u imaanaya email ka timi members@sologroups.com taasoo ku qoran tahay koodka isdiiwaangelinta sologroups.com. kan ayaad furaysaa. waxaa ku qoran asalaamu calaykum, waad ku mahadsan tahay $12 ee aad u soo dirtay sologroups.com. koodkii sanadlaha ahaa ee aad isku diiwaangelin lahayd waa kan. koodkiisaan ayuu noqonayaa. fadlan riix linkigan oo ku geynaya meesha diiwaangelinta laga sameeyo si aad isu diiwaangelisid. waxaa kaloo qoran muhiim ah, koodka waa inuu ugu dambeeya markaad isdiiwaangelinaysid. marka koodkii sidan ayuu kugu imaanayaa. mararka qaarkood waxaa dhacda inuu aado junk mail inuu aado ayaa dhici karta. marka halkan ayaad ka eegaysaa junk mail ayaad ka eegaysaa. marka waxaan sameynaya waxa ugu horreeyaan sameynaya waa halkan inaan idhaahdo right click copy. halkan ayaan riixayaa. kadib wuxuu geynayaa isla meeshii sologroups.com website-ka registration aan ka samayn lahaa. sababtoo ah registration adoon samaynin shabakada ma soo geli kartid. halkan ayuu yimid. weli waxaa kugu qoran $12 bixi, isdiiwaangeli, hore ka isticmaal. waa very simple. markuu sidan yahay halkan waxaad ujeedaa inaad gelin kartid. marka waxaanu isticmaalaynaa magacii aan isku diiwaangelin lahayn. waxaan leeyahay waxaan ka dhigayaa Elias ayaan ka dhigayaa. waxaa xusuus badan waxaan copy kusoo samaystay koodkii uu ii soo diray sologroups.com. marka waxaan leeyahay password abc123 ayaan leeyahay. marka saa ku aragtaan wuxuu isticmaalaa scriptiga uu isticmaalo hore ayuu ka garanaya. marka magaca kale haddii qof uu sii isticmaalaya magacan ka yeeli maayo. marka waxaa muhiim ah magaca haddii usernameka qof kale uu isticmaalayo wuxuu ku leeyahay magacan hadda waa okay, laakiin hadduusan okay ahayn ka yeeli maayo. marka passwordka ayaa 2 jeer la gelinayaa. abc123 ayaan ka dhigayaa passwordka isumeka yule, laakiin haddaan ka leexdo wuu isu egyahay. marka magaciisa buuxa ayaan gelinayaa kaasoo aan leeyahay Elias Ismaaciil ayaan leeyahay. halkan ayaan imaanayaa emailkii lagu soo diray kaasoo ah sologroups@hotmail.com. marka emailkan fadlan ha isticmaalina, email shaqeeya ma ahan. markaasaanan idhaahdo wax walba okay u noqday. waddankan joogo ayaan tegayaa. waddanka waxaan ku qorayaa United Kingdom ama boqortooyada ingiriiska ayaan ka dhigayaa. kabacdi koodkii xawaalad aan kusoo diray wuxuu ahaa dahabshiil. marka wuxuu leeyahay fadlan ka xulo godka hoose sidii aad lacagta ku bixisay. tusaale ahaan dahabshiil
paypal iyo bakal keliya ayaan isticmaalnaa si loogu soo diro fiiga. halkan ayaan tegayaa, right click ayaan leeyahay, koodkii aan soo qaaday ayaan soo dhigayaa. markaan halkan aan tago wuxuu leeyahay koodka waa sax. iminka waxaa samaynaysaa isdiiwaangeli ayuu ku leeyahay. markaad tira isdiiwaangeli, isla markii systemka Solo Group server ayuu ku xirmayaa. wuxuu eegayaa magacaaga, wuxuu eegayaa koodka, wuxuu ku leeyahay wax walba waa okay. fadlan eeg emailkaaga si aad activation u samaysid. okay ayaad leedahay. waxaan tegayaa emailka ayaan tegayaa, inboxka ayaan tegayaa. waxaan ku arkaa Solo Groups magaca isticmaalaha aad ku geli lahayd sologroups.com. marka mararka qaarkood waxaa muhiim ah inaad ka eegtaan junk ayuu aadaa. marka junk waa in laga eegaa haddii ay dhacdo inaan la arkin. marka isaga ayaan tegayaa. marka Solo Groups qof fadhiya ma sameeyo activation, ma sameeyo activationka. automatic systemka ayaa kugu soo dira ama serverka ayaa kugu soo dira. saa awgeed waxaa ku aragtaa assalaamu calaykum Elias, waxaa diyaar ah magaca isticmaalaha username oo aad ku gelin lahayd shabakada sologroups.com. usernameka waa Elias, passwordkana waa abc 123. fadlan si aad u isticmaasho shabakadan waa inaad activation samaysaa. sida aad ku aragtid hoos waxaa yaala linkiga kuu samaynaya activationka oo kan ah. haddii linkiga aad gujin kari weydo, copy kadibna waxaad gelisaa browserka adigoo sidan ka dhigaya. tusaale ahaan browserka ayaad gelinaysaa, laakiin hadda waan riixi karnaa. mararka qaarkood waxaa dhacda in junk uu aado. mar walba waxaa muhiim ah junk emailka inaad ka eegtaan. marka kan ayaan riixayaa, isla markii wuxuu ugu xirayaa saa ku aragtaan shabakada sologroups.com ayuu ugu xirayaa. waxaanu tegaynaa websiteka pagekiisa hore ayaan tegaynaa. markii aan tagno waxaan ku arkaynaa sigoo leh accountkaada waa active. iminka waad isticmaali kartaa sologroups.com. fadlan isticmaal magacii, username iyo passwordkii aad isku diiwaan gelisay. marka inagu keeno wuxuu ahaa Elias abc 123 ayuu ahaa. kadib waxaan leeyahay login ayaan leeyahay, uma baahni passwordka inaan ku save gareeyo. kabacdi wuxuu ugu xirayaa sologroups.com ayuu ugu xirayaa oo hore aan ka isticmaali karo. marka usernamekan iyo passwordkan aad samaysatay, gacantaada ku samaysatay, waxaa loo isticmaali karaa wax walba oo ku jira sologroups.com ayaa loo isticmaali karaa. waan ku jirnaa iminka, waan soo dhex galnay. saa ku aragtaan waxaad garanaysaa kana kuwa furma. marka waxaad ku isticmaali kartaa qoraalada, tutorialka, downloadka, forumka, quick fix, security, meel walba ayaad u isticmaali kartaa passwordkan hadda aad samaysay. tusaale ahaan xilliga aan ku jira hadda aan login aan ku ahay, haddii aan ka tegayo sologroups.com shabakada, waxaa muhiim ah halkan inaad tagtid lockout aad tirahdid lockout. wuxuu ku leeyahay hi Elias Ismail, lockout waa inaad tiraahdaa. haddii kale 15 minute waa inaad sugtaa, kuma soo laaban kartid. marka kuwaan dhan saan kuu sheegay waa ku isticmaali kartaa. waxaan eegaynaa forumka iyo siduu u shaqeeyo. tusaale ahaan marka login ayaan ahay, waxaan tegayaa dhinaca forumka si aan u ogaado qaabka u shaqeeyo iyo waxa aan ku samayn karno. markii forumku ii furmo, marka waxaan samaynayaa in aan aragno qaababka ugu muhiimsan iyo sida loo isticmaali karo forumka. marka rules ayaa yaala halkan. wuxuu ku leeyahay welcome Elias. tusaale ahaan waxaan doonayaa softwareka sectionka kala duwan ayaa ku yaala. marka si dhaqsi ah ayaa lagugu soo jawaabay. waxyaale aad u fara badan ayaa ku jira halkan saan ku aragtaan. rules ayuu leeyahay, waa inaad akhrisaa. marka softwareadoo kale haddii aan ka hadlayo, haddii aan doonayo inaan ku biiro comment ama qoraalo hore u jiray, waxaan furayaa meeshii aad is leedahay waxaad ka helaysaa qoraalo hore u socday ayaad furaysaa. markii aad furtid meeshaad ku arkaysa. marka waxyaalo badan ayaa ku jira. cilad ayaa ay haysata iyo waxyaalahaas. marka macalin cilad ayaa ay haysata, iga caawi, wax soconaya maahan, cid kuu soo jawaabaysa male. waa in aad sheegtaa sidee loo xaliyaa errorka. code waa sax, qofkaan oo kale sidaan loo xaliyo. su-aal ku saabsan kanoo kale waa sax. Windows 8 version Windows 8 waa su-aal. Apache port 8 waa su-aal wanaagsan, laakiin caawi su-aal ma ahan. saa ku aragtaan reply male. marka haddii aad doonaysid topic cusub inaad furtid ama kan socda, haddii aad doonaysid inaad wax ka qayb gashid, waxaad tegaysaa halkan ayaad riixaysaa. markii aad riixdid waxaad samaynaysaa, waad gelaysaa gudihiisa ayaad gelaysaa. markaad gashid waxaad ku qoraysaa jawaabtii ama su-aashii ama wixii aas lahayd. waa wax bay wax qofku u bedeli karaan ama samayn karaan ama adigaa weydiin karta ayaad dhexgelinaysaa. markii aad furtid san ay kugu furmaya, waad sii wadaysaa. quick reply ama reply ayaad leedahay, san ayuu soconaya. marka haddii aad doontid inaad ku laabatid oo aad samaysid topic cusub oo adiga kuu gooniya inaad samaysid, haddii aad doonaysid, markaad topica saa u samaysid waxaad leedahay new topic ayaad leedahay. markuu kuu furmo topica waxaa kuu soo baxaya in aad qortid qoraal loo baahan yahay oo muhiim ah.
oo ishu ay ku dhacdo software oo kale isha kuma dhacdo sidee ugu duwa password unlock bundle waa isha ku dhacda taas kala hadaan sameeyo waxay laga caawin halkan idin ku qoraysaa wixii aad doonto laga caawin halkan ku qoraysaa inta kalena halkan ay soo gudbinaysaa marka waxaan filayaa kan inaan isla fahno marka waxa xusuus mudan ardayga ku soo biiray ee shabakada inuu isticmaalo account-ka isaga u goonida sababtoo ah systemka Solo Groups wuxuu isticmaalaa IP address control wax la yiraahdo isticmaalaa taasoo eegta meesha laga soo galay waqtiga la soo galay downloadka la sameeyay casharada la daawaday marka haddii systemka uu ogaado IP address wadamo kala duwan in hal account loo isticmaalay ama si xadgudub loo isticmaalay blog ayuu ka sameynaa mar walba sida la socotaan shabakada sologroups.com waxa ku jira dhowr kun oo cashar ama qoraal ama download marka waxa hubaal ah ardayda nagu cusub inay dib ku tahay siday ku heli lahaayeen wixii dhaafay laakiin systemka sologroups.com aad ayuu fudud uga dhigay haddii aad isleedahay cashar aad doonaysid ama download ama tutorial nooc walba waxaad tegaysaa halkay ku qoran tahay raadi wixii ku dhaafay halkan ayaa tegaysaa tusaale ahaan haddii aan doonayo antivirus oo kale waxa kaliya aan doonayo inaan ku qoro waa virus ayaan ku qorayaa enter ayaan leeyahay ka bacdi waxaa ii soo baxaya wixiiba magacaas wata ayaa ii soo baxaya saa ku aragtaan AVG internet security wax walbo virus qusay ayaa ii soo baxaya antivirus remover wax walba iisan ii soo baxaya marka fadlan ha soo weydiin tusaale ahaan ha tegin halkaan ha oran waxaan doonayaa request a lesson kan waa cashar aad doonaysid inaad soo weydiisid ha ku soo weydiin software aadan ka raadin halkan waayo softwareada inta ugu badan halkan ayay ku jiraan halkan ayaa laga helaa taas aad ayay muhiim u tahay marka haddii ay dhacdo softwareki in halkan ka weyday ama Solo Groups ka weyday waxaad tegaysaa halkan ayaa ku qoraysaa sologroups.com ka bacdi waxaad ku qoraysaa box aad ku qoraysaa waxa ku soo baxaya page-kan ay ku qoran tahay email-kaada password-kaaga software codso gal marka waxaad leedahay halkan aad tegaysaa software codso waxaad ku qoraysaa email-kaaga wuxuu yahay magacaaga iyo software-ka aad doonaysid tabcan kuma qori kartid waxaan doonayaa software waxaas lagu sameeyo software-ku waa in ay magac lahaataa sida ayaa wax lagu sameeyaa marka waxaan filayaa kanna haddii aad ka weysaan software-ka sologroups.com in aad halkan ka heli kartaan si simple ah marka waxaan sameynayaa gadaal ayaan u laabanayaa marka waxaan tusayaa dhinaca contacta as haddii aad tirid halkan waxaad furaysaa contacta as haddii aad doonaysid inaad la soo xiriirtid wuxuu imaanayaa emailkan info@sologroups.com oo ah meesha keliya ee la iskala xiriiro marka contact formka waxaa ku qoran dir emailka fadlan buuxi godadka xidigta magacaaga emailkaaga subjectiga aad doonaysid iyo messageka halkan ku qortid marka waxaa jira inuu ka ilaaliyo capture inuu ku jiro laakiin waqtiga login aad tahay capture uma baahna marka taasna aad ayay muhiim u tahay marka waxaa kaloo jira haddii aan idhaahdo tusaale ahaan lockout aan idhaahdo aan ka baxo waxaa ardayda inta badan ku dhacda inay ilowaan username-koodii iyo password inay ilowanayaan dhacda marka si aad u samaysatid uma baahnid in aad Solo Groups aad usoo dirtid uma baahnid email adiga ayaa soo ceshan kara waxaad tegaysaa registryga ayaa tegaysaa ama loginka ayaa tegaysaa waxaad leedahay forget your password forget your username marka waxaan ilooway passwordkayga marka wuxuu ku leeyahay fadlan geli emailkaaga code ayaa lagugu soo dirayaa emailkaada markii aad heshid waad bedeli kartaa marka waxaad samaynaysaa emailkii aad isku diiwaangelisay ayaad halkan gelinaysaa ka bacdi waxaa halkan yaala capture kaasoo ah ka jawaab ay ku qoran tahay kaasoo ah 18 haddii laga jiro 8 waxaan filay inay tahay 10 inay tahay submit ayaad leedahay isla markii hore ku gelaya isla sidaa waxaad ku samayn kartaa haddii aad ilowdid username-kaaga haddaad ilowdid ayaad ku samayn kartaa marka adiga ayaa wax walba oo loo baahan yahay soo ceshan kara isla sida ayaad samaynaysaa isla sida ayaad u gelaysaa horena waad ka isticmaalaysaa marka casharada sologroups.com laga barto waa bilow ilaa dhammaad marka qaabka shabakada uma shaqeeyo in casharo qaarkood tabcan waa jiraan oo muhiim ah oo aan soo gelin hore laga isticmaalo way jiraan laakiin casharada taxanaha ah sida JavaScript Visual Studio sida PHP hadda bilowday Access ku hadda bilowday .NET ku hadda bilowday waa casharo soconaya dhowr bilood ama xataa sanad iyo bar laba sano soconaya waxay ka bilaabeen from basic ilaa meesha ugu dambaysa ayay soconayaan kuwaasna aad ayay muhiim u tahay marka waxaa muhiim ah mar walba aad u baahan tahay macluumaad ama aad doonaysid in aad wax ku soo kordhisid info@sologroups.com ayaad isticmaalaysaa oo aad muhiim u ah oo aad kala soo xiriiri kartaan mar walba shabakada sologroups.com marka
waxaan kaloo aan ku jirnaa facebooka saa ku aragtaan halkan, twitterka, youtube-ka iyo skype ayaan ku jirnaa. marka facebooka waa facebook wax kala laguma sameeyo, marka su-aalo kuma soo weydiin kartid IT ma weydiin kartid code, waxba kuma samayn kartid, sababtoo ah waxaa loogu talagalay asxaabta keliya in ay iskula sheekaystaan wixii IT quseeya info@sologroups.com. marka haddii aad macalinka ku aragtaan skype-ka waad kula sheekaysan kartaan, IT ayaad kagala sheekaysan kartaan. waxaa kaloo ku jira hadduu macalinka online yahay halkan waxaad kula sheekaysan kartaa, waad weydiin kartaa wixii IT ku saabsan ayaad weydiin kartaa. marka qaabkan waa sida uu sologroups.com u shaqeeyo oo la doonayo cid walba inay fahanto. marka koodka waa lagu soo dirayaa, koodka adigu kama helaysid dahabshiil ama bakaal kama helaysid, waa lagu soo diraya, laakiin waxaa muhiim ah inaad email usoo dirtid members@sologroups.com aad usoo dirtid ayaa muhiima. marka waxaan filayaa in aad si fiican ula dhacdeen oo aad fahanteen. marka linkiyada iyo wax walba halkan ayay yaalaan. waxaana muhiim ah shabakada kuma jiro pop up, kuma jiro shabakada, kuma jiro xayeysiin, kuma jiro, waa very simple, waa classic sida loo sameeyey saa ku aragtaan. PHP ayaa lagu sameeyey, waa content management system oo jumla ah. linkiyada halkan ku yaala waa very simple wax walba. marka wixii macluumaada mar walba info@sologroups.com idinkoo mar walba daawanaya videoga halkaad ku aragtaan. insha allah waxaan filayaa in casharo aad u fara badan iyo waxbarasho wanaagsan aad kala kulmi doontaan shabakada sologroups.com. magacaygu waa cabdinaas ismaaciil, emailka sidii caadada ahayd info@sologroups.com. a request lesson ama cashar ay soo weydiiyeen arday wax ka barata sologroups.com. casharkan runtii aad ayuu xiiso badan yahay. inta badan waxaa laga hadlayay Microsoft markii ay soo saartay Windows ugu dambeeyay 8 in security-ga aad loo adkeeyey, aadna u adagtay, iyagoo xitaa sameeyey updates kala duwan. laakiin waxyaalaha ugu yaabka badan ee aan aragnay waxay tahay in passwordka haddii la iloobo computerka aan format lagu sameyn, wax kale lagu samayn karin, aad ka dulboodi kartid, oo runtii cajiib ah, waana qaab aad u fudud. casharku wuxuu noqonayaa how to reset a forgotten Windows 8 password. sidee reset lagu sameeyaa ama mid cusub loo geliyaa ama loo samaystaa haddii aad ilowdid Windows 8 password ku xirnaa. inta badan waa la iloobaa, laakiin haddii la iloobo waxaa lagu samayn karaa format ayaa lagu samayn karaa Windows Vista 7 iyo 8 adigoo wax documentation ka lumay, laakiin softwareki reinstallation aad ku samaysaa. waxyaalo qaarkoodna way lumaan inta badan. marka casharkan waxaan ku baranaynaa sida loo furo iyadoo aan la isticmaalaynin software, oo la isticmaalayo wax ku dhex dhisan Windowska 8ka oo aan doonayno passwordka inaan ka saarno. marka haddii aad doonaysid any version of Windows 8 oo password kaaga xirmay, qaabkan ayaad isticmaali kartaa. qaabkan waxaa loo isticmaali karaa 7 laakiin waa ka yara duwan yahay. waxa ugu horeeya aan sameyno waxay tahay a disk, a recovery disk inaan sameyno. downloadka sologroups waxaa ku jira Windows 8 repair distributable ah. sidan ayaa soo download galinaysaa, highlight ayaa leedahay, waxaad leedahay extract, waxaad geynaysaa a desktop ayaad geynaysaa. marka qaabkan waa loo sameeyaa, qaab kale loo sameeyo oo kasii fudud waa intusi karaa, waan arkaynaa. marka waxaad ku furi kartaa Nero ama Magic iOS, wuxuu noqdaba si uu bootable u sameeyo. marka kuwaan oo dhan waxaad download kaga samayn kartaa sologroups. burn ayaad leedahay, hore ayuu kaaga samaynayaa. marka waxaa kasii fudud oo lagu samayn karaa waa adigoo taga Windows 8 ama qof saaxiibka uu leeyahay ama laptop uu ku jiro ama ku yaala ama xataa VMware ah ayaa laga dhex samayn karaa. marka Windows markuu sidan yahay waxaanu aadaynaa C panelka ayaan aadaynaa ama control panelka ayaan aadaynaa sida caadada ah. halkan ayaad waxaad qoraysaa control panel, control panelka ayaad furaysaa. halkan waxaan ku qorayaa Windows 7 ayaan ku qorayaa, sababtoo ah file recovery-ga isku si ayuu u dhisan yahay, labada qaabkay u shaqeeya. marka Windows 7 ayaan halkan ku qorayaa, Windows 7 recovery file-ka ayaa furmaya, create system repair disk ayaad leedahay, kadibna waxaad gelinaysaa empty DVD ama CD, laakiin CD ayaa ku fudud waayo waa 300 oo megabyte ayuu noqonayaa. create ayaad leedahay, kan markaad riixdid
hadda wuxuu isla markiiba ku weydiinayaa in uu ku jiro DVD ama CD uu ku jiro. hore ayaan u sameeyey blank maan ayuu ku leeyahay kan hore ayaan u sameeyey idinka qaabkan ayaan u sameeyay qaabkan ayaa ugu fudud oo loo sameyn karaa. marka sidaan u sameeya marka u sameysaan ka bacdina waxaan ku sameynaynaa reboot ayaa system ku sameynaysaa si insertion u sameeyo. marka intaadan reboot ku sameynin waxaad u baahan tahay in BIOS systemka basic input and output systemka aad ka sameysid si DVD ama CD room boot uga soo sameeyo. kaas aad ayuu muhiim yahay. by the way casharkan waxaa la socda mid qoraal ah oo sawiro la socda oo haddii videoga dhib kugu noqdo kana isticmaali kartid. marka aad ayuu muhiim u yahay inaad la socotaan. marka inta badan waxaa laga sameeyaa BIOSka right click ayaad leedahay haddii aad isticmaalayso VMware power. hadda wuxuu ugu fadhiyaa jeedaan power on to BIOS ayuu ugu fadhiyaa. marka hadda reboot haddaan ku sameeyo wuxuu igeenayaa meeshii laga bedeli lahaa BIOSka laga bedeli lahaa ayaa uu siinayaa. marka intaan kaan sameyn waxaan sameynayaa halkan ayaan tegayaa waxaan ku xirayaa password ayaan ku xirayaa systemka sababta waxaanu doonaynaa in aan ilowno passwordka inaan isticmaalin waa inaan ilownaa. markii aan ilowno kadibna in aan furnaa sababtoo hadda systemka password kuma xirna. marka waxaan tegayaa isla control panelka ayaan tegayaa ayaan ku qorayaa halkan userska ayaan tegayaa. markaan tago user account ayaan tegayaa kadibna waxaan tegayaa make change to your account at the PC settings. halkan ayaan waxaan ka sameynayaa password cusub ayaan ka sameynayaa. ujeedaan sign in option iyo option waxaa jira userka loo isticmaalo kan iyo kan loo isticmaalo ayaa jira labadan kala nooc ah. marka create password ayaan leeyahay kan hoose waxaan ku qorayaa passwordka aan iloobi doono ayaan ku qorayaa. inta badan waxaa la sameeyaa si aadan u iloobin hint ayaa lagu xasuusta. marka waanu isilowsiinaynaa kadibna next time restart lagu sameeyo wuxuu ku weydiinayaa systemka. markuu sidaan yahay waxaan sameynayaa desktop ayaan ku laabanayaa oo halkan ah waxaan sameynayaa systemka iminka password ayuu ku xiran yahay restart ayaan ku sameynayaa si uu reboot ugu soo sameeyo oo aan u sameyno DVD ayaa ku jira systemka kaasoo ah kii aan sameynay si uu repair uu u sameeyo oo aan passwordka aan ugu sameyno password cusub aan ugu sameyno waa reset ayaan ugu sameynaynaa iyadoo waxba naga lamin. halkan ayaan tegayaa setting waxaan leeyahay power restart ayaan leeyahay. marka systemka saan ayuu shaqeynaya. markuu soo laabto automatically aniga waxba sameyn wuxuu igeenayaa option ah in aan boot ka soo sameyn karo dhanka DVD-ga ama CD-ga ku jira meesha. okay ayaan leeyahay markaan ka sameeyo. idinkuna waxaa la doonayaa CD-ga in BIOSka aad setting ugu sameysaan oo ah the first one kan ugu horeeya inuu kasoo boot gareeyo DVD-ga ama CD-ga. haddii kale hard drive-ka ayuu aadayaa saa awood wax kuma sameyn kartid. marka BIOSka aad ayuu muhiim u yahay in aad restart kaga soo sameysid meeshaas. marka xilliga uu dhameeyo restartka meeshan uu ku dhameeyo uu soo laabto halkan ayuu imaanayaa wuxuu qoranayaa marka DVD-ga marka soo bilaabaha ayaan leenahay enter ayaan idhi. markaan enter idhi waxaa soo baxaya mar dhow windowga ayaa saan usoo baxaya wuxuuna geynayaa dhinaca advance ayuuna geynayaa si aan u sameyno passwordkii. marka waxaa muhiim ah passwordkii waan ilownay ma naqaano marar badan ayaan isku dayin inaan galno waxaa la yidhi is impossible. marka waxay ahayd oo keliya in aan systemka format ka dhigno. format haddii laga dhigana waxyaala badan ayaa kaa lumaya software installation everything. by the way qaabkan oo kale waxaad u isticmaalaysa haddii aad tahay PC maintenance haddii aad tahay PC engineer haddii aad tahay aad ayuu ku anfacaya sababta waxaa laga yaabaa in lagaaga yeero meel ah computerkii window 8kii ayaa la iloobay ama 7kii ama Vista ayaa waxaa la iloobay passwordkii. saa awgeed waxaan doonaynaa in aad noo sameysid waxaad leedahay no problem as a reference videogan ayaad eegaysaa iyo qoraalku isla socda isla markii hore ayaad ka sameynaysaa. marka waxyaalaha ugu fudud ee loo isticmaalo. marka waxaan sameynaynaa ilaa uu kasoo laabto uu kasoo gaaro meesha prompta ah ayaan sugayna. markuu soo gaarana waan kusoo laabanaynaa casharka. okay saan ku aragno halkan ayuu soo gaaray. waxaad ku aragtaan luqado kala duwan ayay ku aragtaan English haddii aad halkan eegto waxaa kuusoo baxaya more languages ayaa kuusoo baxaya. marka waxay ku xiran tahay luqadda waddanka aad isticmaashid ay ku xiran tahay. luqadda Englishka ayaa standard ah too many different countries. marka kii aad doontid ayaad isticmaalaysaa ujeeda every language keyboard ayaa available u ah marka luqadaha kala duwan. marka markii luqadaha sidan ay kugu soo baxaan luqadada ayaad dooranaysaa. waxaan dooranayaa keyboard layout-ka for example United Kingdom aan jooga ayaan dooranaya. markaan saan usoo baxo waxaan leeyahay troubleshoot ayaan leeyahay. waxaan leeyahay kabacdi advance ayaan leeyahay.
waxaan soo saarayaa command prompt ama shaashada madow waxa ugu horreeyaan samayna waxaan leenahay disk part oo sidan ah si aan ogaano waxa ku jira wax yar ka bacdi wax yar ayaan sugaynaa waxaa soo baxaya disk part ka bacdi waxaan leeyahay list vol space ayaan ku samaynayaa inta volume ku jirta inta hard drive ku jirta sababtoo ah systemkiina caadiga ayaad isticmaalaysaan enter ayaan leeyahay saa ku aragno waxa ii soo baxay volume 1 c new technology file system partition 59 gigabyte healthy طبعا kan waa VMware workstation ayuu ku jiraa kadib markuu sidaan usoo baxo waa ii dhammaaday kan waxaan leeyahay x ayaan leeyahay waan ka baxayaa markuu saan igu soo baxo waxaan leeyahay c laba dhibic ayaan saan u samaynayaa enter ayaan leeyahay marka siga ii soo baxo waxaan ku qorayaa cd space windows ayaan ku qorayaa enter ayaan leeyahay markuu saan igu soo baxo kadib waxaan leeyahay cd system 32 ayaan saan u leeyahay kadib waxaan leeyahay enter system 32 ayaa saan igu soo baxay marka intan kadib aad ayay muhiim u tahay inaan ku qabo copy ayaan leeyahay markaan sameeyo waan ka sikanayaa command.exe oo ah executable ayaan leeyahay waan ka sikanayaa mar labaad waxaan leeyahay command.exe.original ayaan saan u leeyahay kadib waxaan leeyahay enter ayaan leeyahay wuxuu kusoo qorayaa override command yes to all ayaan leeyahay idinka waxaa laga yaabaa one file copy idin soo baxo marka tijaabooyin hore aan ku sameeyay uu soo saaraya okay uu leeyahay saa ku aragtaan one file copy marka adigu haddaad samaysid waxaa laga yaabaa inuu kusoo baxo kan straight inuu kusoo baxo aniga hore ayaan mid u sameeyey marka kadib waxaa ku qoraya copy ayaan saan ugu qoraya halkan waxaan leeyahay copy waan ka sikanaya capital letter utilman ayaan isticmaalayaa hore ayaan cashar ugu samaynaysaa la socotaan exe ayaan isticmaalaya waan ka sikanaya mar labaad waxaan leeyahay utilman.exe.original ayaan saan u leeyahay marka waxaan sameeyey copy utilman.exe waxyar ayaan ka sikaday utilman.exe original enter ayaan leeyahay one other file copied kadib waxaan leeyahay delete ama delde capital letter utilman ayaan saan u leeyahay kadib waxaan leeyahay .exe executable enter ayaan leeyahay kadibna waxaan leeyahay render ku samee ren ayaan ku leeyahay san space ayaan leeyahay command.exe ayaan leeyahay .utilman ayaan saan u leeyahay .executable enter ayaan saan u leeyahay okay syntax of the command is incorrect marka waxaan eegayaa qalad loo yimid rendering command.exe utilman waa kaas kan ayaan ay qaldan sababtoo ah dhibic ma ahan kan marka waxaan sameynaa ku celinaynaa rendering ayaan saan u leeyahay mar walba qaladka iska ilaali command.exe space utilman hadda hore ayuu ka shaqeynayaa sababtoo ah kan ayaa hakad aha kan waa dhibic caadi ah enter ayaan leeyahay waa ujeedaa utilman hore ayuu nooga shaqeeyey marka halkan joogo waxa kaliya aan sameynaa waxay noqonaysaa in systemkii shutdown aan ka dhigo capital letter ayaan ka bilaabaya shut down ayaan leeyahay command caadi aan u isticmaalay shutdown space r restart space t ayaan ku qorayaa kabacdi 20 ayaan ku darayaa 00 enter ayaan leeyahay systemka restart ayaan isku sameynayaa marka wuxuu sameynaya markuu restart ku sameeyo wuu soo laabanaya wuxuu ku imaanaya meeshii ku xiran marka waxba ma riixaysid imiska wuxuu ku leeyahay press any key laakiin waxba ma taabanayo systemka sidii caadada ahayd ayuu restart ku sameynayaa wuxuuna automatically u imaanayaa meeshii passwordka uu ku xirnaa ma gudbi karo sababtoo ah ma naqaano passwordka yaan ilownay marka markuu halkaas yimaado waxaan sameynaynaa waxaan isku dayaynaa in passwordkii aan crack garayno inagoo isticmaalayna utilitieska ku dhex dhisan runtii Microsoft ku dhex dhisan oo iyagu ay soo sameeyeen marka waa security-gii ugu horeeyay oo lagu arko Microsoft oo noocan ah markaas uu soo socday halkan yimid halkan ayaan riixayaa ujeedaa solargroups.com ayuu ku xiran yahay cashirka qoraalka waxaan ku sameynay Solar Groups Office oo ka duwan meesha kan ku sameeyna marka Solar Groups Office ayaa halkan noqonaya marka markuu yimaado wax kastoo aad sameysid ma xasuusnaan kartid passwordkii ballan isku dayno enter wuxuu leeyahay password incorrect mar labaad aan isku dayo walba aan sameeyo hint wuxuu ku leeyahay xxx qof xasuusan kara male okay marka waxaan sameynaa halkan hoose ayaan imaanayaa
ease of access isaga ayaan riixayaa waxaa ii soo baxaya command prompt ayaasan igu soo baxaya marka kan aad ayuu muhiim u yahay sida marka uu soo baxo waxaan sameynayaa net space ayaan leeyahay user ayaan ku qorayaa halkan enter ayaan leeyahay marka halkan ayaan igu soo baxaya markuu saan igu soo baxo kan hoos ayaan u degaa si aan u wada aragno wax walba marka command with more errors don't worry about it marka kana samaysid waxaan sameynayaa net space user waxaan leeyahay solar groups xusuusnow wuxuu ahaa kii halkan noo yaalay oo sidan ayuu ahaa solar groups marka kaas ayaan u soconaa keliya marka waxaan rabnaa inaan aragno aan ku laabanaya mar labaad solargroups.com ayuu noqonayaa marka kaaga markuu password ka xiran yahay kan halkan ku yaala unbaad raacaysa that's why aan ugu laabto halkan si aan u xaqiijino marka anigu solargroups.com ayaan isticmaalaya laakiin adigu kaaga waxaad isticmaalaysaa passwordka magac kaaga xiran yahay hadduu caasho uu yahay cali ibrahim wuxuu ahaadaba halkan ayaad raacaysa solargroups.com waa keena marka waxaan ku laabanayaa net waxaan leeyahay space waxaan ka sikanayaa user ayaan leeyahay enter ayaan leeyahay markaasaan u galo iminka waxaan leeyahay net space user waxaan leeyahay capital letter ayaan ku bilaabayaa solargroups.com ayaan ku bilaabayaa kabacdi xidigtan ayaan ku dirayaa enter ayaan leeyahay waxaa dhacay fiiri type a password for the user ayuu leeyahay markan okay looma arka markaa looma jeedo markaas oran waxaad qoraysaa ujeeda waxaan qorayaa a b c 1 2 3 ayaan qorayaa looma jeedo waxna ma dhaqaaqayaan marka taas ku wareerin enter ayaan leeyahay wuxuu leeyahay retab ayuu leeyahay a b c 1 2 3 ayaan leeyahay enter ayaan leeyahay mar labaad waxa ujeedaa command completely successful ayuu leeyahay waa kan marka looma jeedo waxa muhiim ah oran waad arkaysaa ama waxba ma dhaqaaqayaan xidigtan haddaa ilowdid kan ma helaysid waa muhiim kabacdi waxaan leeyahay exit ayaan leeyahay waan ka baxayaa halkan ayaan riixayaa a b c 1 2 3 haddaan idhaahdo enter ayaan leeyahay waxaad arkaysaa in aan dhexda ka galnay aad arkaysaa windows 8 runtii aad u fudud qaabka uu galay marka iminka log aan ku sameynay saa ku aragtaan inagoo isticmaalayna passwordkii hadda aan sameynay marka haddii wax walba ay ku shaqeeyaan waa in aad dib ugu laabataa oo aad samaysaa sababtoo ah utilman.exe iyo command.exe ayaa wax aan ka bedelay marka waa in aan ku laabanaa oo aan saxnaa haddii kale waxaa dhacaya haddii aad u baahatid inaad isticmaashid in ay ku shaqayn doonin mustaqbalka dambe ayaa waaba dhacaysa ku shaqayn maayaan marka waxaan sameynayaa desktopka ayaan tegayaa halkan ayaan tegayaa systemka ayaa waxaan leeyahay power restore ayaan leeyahay waxa kaliya aan sameynaya wadadii aan soo marnay un baan ku laabanaynaa marka waana xaqiijinaynaa sida lagu xaqiijin waa intuusaya marka in labadii command oo kala duwanaa utilman iyo command.exe ay sidii la doonaya u shaqeeyaan marka waxba ha boot garaynin kan wuxuu aadayaa automatically wuxuu aadayaa meeshii loginka hore ayuu aadayaa marka waxaanu sameynaynaa waanu raacaynaa isla wadada ayaanu raacaynaa wax yar ayaan ka bedelaynaa meeshii aan ka bedelnay rendering utilman.exe original ayaanu ku laabanaynaa kadib restore ayaan ku sameynaynaa marka waxay noqotaba sidaas ayaan kusii wadaynaa marka sidaan ku sameynayna waxaan arkaynaa in utilman sidiisu kusoo laabto marka sidaan ku ogaanan inuu shaqeynaya in kale kan haddii asaan u riixo waxba ma soo baxayaan ad saa ku aragtaan ujeedaa kan waxaan ka wadaa markaan saan sawirraduna ku arki doontaan waxaa la doonayaa in dropdown saan ay ugu soo baxda ayaa laga doonaya halkan marka saan oo aragno waxba kama soo baxaan marka waxaan sameynayaa mar labaad ayaan waxaan sameynayaa restore ayaan ku sameynayaa iminka cd ayaan kusoo kicinaa sababtoo kan ayaan doonaya waxba kama soo baxayaan command prompt forget it kan iska ilow kan waan isticmaalay laakiin waxaa la doonayaa in ay ka soo baxaan qoraallo ku tusaya in utilmankii iyo command.exe ay shaqeynayaan marka waxaan leeyahay shutdown ayaan leeyahay restore ayaan leeyahay waxaan kusoo kicinaynaa cd-gii ayaan kusoo kicinaynaa si aan u sameyno aan boot ugu sameyno recovery aan ugu sameyno marka isla wadadii ayaan maraynaa marka markuu sidan usoo baxo waxaan leeyahay kusoo bootgaray ayaan leeyahay cd-gii marka cd-gii wax yar ayuu qaadanayaa tabcan ilaa uu bootka kasoo sameeyo markuu kasoo sameeyana innagana waan la soo laabanaynaa casharka isagoo sidiisii ah okay saa ku aragtaan rebootkii soo sameeyey mo keyboard halkan ay ka tegi kartaa laakiin us waxaan iska isticmaalaya keyboard same things waa luqada ingiriiska waa isku mid troubleshoot ayaan leeyahay
kabacdi waxaan leeyahay advance command prompt isla sidii ayaan kusoo laabanayaa waxba ka bedeli maayo iminka waxaan leeyahay kaliya c laba dhib ayaan saarayaa enter ayaan leeyahay c-ga ayaasan igu soo baxaya waxaan leeyahay cd windows space sidan windows enter ayaan leeyahay kadib waxaan leeyahay cd system 32 ayaan leeyahay enter ayaan leeyahay kabacdi ayaan waxaan isticmaalayaa delete ayaan leeyahay del utilman ayaan saan leeyahay .exe ayaan leeyahay enter ayaan leeyahay system 32 saan igu soo baxay kadibna waxaan leeyahay render ku sameey ayaan leeyahay capital utilman ayaan saan leeyahay render utilman .exe kabacdi waxaan leeyahay original waan isdhaafinayaa saa ku aragtaan runtii waa command very easy space waxaan leeyahay utilman .exe ayaan leeyahay enter ayaan leeyahay system 32 saan igu soo baxaya kadibna waxaan leeyahay mar labaad waxaan ku sameynayaa render ayaan ku sameynayaa waxaan soo celinayaa command .exe .original waa isdhaafaya saa ku aragtaan si aan u soo celino original space waxaan leeyahay command .exe ayaan saan u leeyahay enter ayaan leeyahay markaan saan u sameeyo waxaan filayaa wax walba waan dhameynay taas ayaan ku sameynaynaa waxaan leeyahay marka ugu horeysa shutdown ayaan leeyahay si systemka saan u soo celiyo capital letter small letter ku bilaabi karta it does not matter space dash r space dash waxaan leeyahay t waxay dhageysanaysaa 00 enter ayaan leedahay systemka restart ayuu sameynaya marka waxaan sugaynaa ilaa uu kasoo gaaro oo aan test aan ku sameynay ease access aan ku sameyno iminka dhinacii log ayuu aadaya hadda ayaan arkaynaa wixii aan ka hadlaynay kaasoo ahaa in systemka aan ku aragno wixii uu sameeyey oo ah in utilman.exe iyo command.exe uu ku xeliyey original sidii loo isticmaali lahaa sababtoo waxyaalo aad u fara badan ayaa loo isticmaalaa oo haddaan arki doonaa easy access marka la sameynayo kale dhanka bidixda ee hoose haddii easy access uu soo baxo sidan kan ayaan saan u riixayaa passwordka ayaan saan ugu xiran halkan haddaan eego saan ayaan u riixayaa ujeeda narrator magnify on screen keyboard high contrast ujeeda oo hadlaya ujeeda haddaan riixo mar labaad waxaa ii soo baxaya easy accesska ayaa saan igu soo baxaya ku aragtaan saan ayaa ka riix meesha kurxida ay ku xiran tahay sidan kaas marka kaasi macnaheedu wuxuu ahaa utilmankii iyo command.exe waan soo celinay waxaanu isticmaalay kanna waa security loophole wax la yiraahdo waa security Microsoft ay ka shaqeyn weysay oo sidaan loo geli karo loona isticmaali karo marka waxaan filayaa casharkan xiisaha badan oo isugu jira qoraal iyo video inaad la dhahdeen u isticmaal as reference tijaabo ku sameeya marka wuxuu ahaa how to reset forgotten Windows 8 password oo ah request lesson arday ee soo weydiiyay wixii macluumaad info@sologroups.com laakiin waxaan idin sheegayaa mar walba ka sameeya intaad isticmaal lahayn kii kan downloadka ah oo halkan yaala oo bootable-ka ah waxaad mar walba muhiim ah inaad isticmaashaan VMware ama computer saaxiib uu leeyahay oo aad ka dhex samaysaan disk sidaan u sameynay anigoo ah macallin cabdinaasir intaa wada kulmi doona waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu